Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada. Maanta waxaynu joognaa magaalada Muqdisho, meel ka mid ah meeshaas oo ah Albaraka area, Baar Ubax iyo zoonahaasaan joognaa. Marka maanta waxaan leenahay howl gaar ah kaasoo kaga hadli doono arrimaha bulshada iyo magaalada xaaladeeda, bal sida ay wax u marayaan shaqada iyo waxyaabaha ku saabsan. Marka maanta waxaan la joogaa Maxamed Xaaji oo ah qabiir darawal Muqdisho ah, oo kaasoo ah qabiir weynaaday. Marka bal xaaladda bal sidii hore magaalada Muqdisho ahayd iyo sida ay maanta tahay, jaamamka iyo qarashaadka iyo sida qaabka ay maaragtay income waagii wadooyinka intaan la xirin ka hor sida ahaayeen iyo hadda bal inuu noo waramo. Maxamed Xaaji kusoo dhawow. maasha Allah, bismillaahir rahmaanir rahiim. Waa maasantahay Cabdixakiin aad iyo aad. Waxaan salaamayaa dhammaan daawadayaasha meel kasta ay joogaan. Waxaan leeyahay Ramadaan Kariim. Haddii aan usoo laabto su-aashaadii ahayd ka waran bal jawiga iyo xaaladda magaalada Muqdisho. Wallaahi magaalada Muqdisho xaaladeedu waa iska cakaran tahay markii dhinac laga fiiriyo. Marka dhinac laga fiiriyona wallaahi alxamdulillah aan leenahay maasha Allah way fiican tahay. Haddii dhinac laga fiiriyo wadooyinka iyo isticmaalka wadooyinka iyo socodka gaadiidka aad iyo cariiri u yahay, maadaama ay wadooyinkii iska zaxmadii ay badatay, meelihii lagu kala nafisi lahaa oo wadooyinka lagu kala leexan lahaa ay dhagaxiin iyo malaayo ay taagan tahay. Marka laakiin sidii kale alxamdulillah maasha Allah, Ramadaan Kariim aan ku jirnaa, waa nimcaysanahay alxamdulillah. Marka loo fiiriyo cudurka hadda socdana caalamka masaajidii waa laga xiray. Maxamed waan u soo noqon doonaa taas cudurka. Marka dhagaxaantaas magaalada la dhigay, nabadgelyadii wax ma ka bedeleen mise waa ka sii dareen? wallaahi haddii horta si loo fiiriyo dad ayaantan alxamdulillah horta wax dhibaato ah ma dhicin oo qarax iyo waxaas ma dhicin alxamdulillah rabbil caalamiin, ilaah noo siyaadiyo. Laakiin ma dhihi karo waxa sabab u ah wadooyinka la xiray ama dhagaxa lagu xiray ayay amniga sabab ma dhihi karo, waayo amni haddii wadooyinka la xiro oo dhibaatooyinka dadka la caburiyo waxaan is leeyahay waa amni meeshaas ka imaanaya. Laakiin waxaan maqlay gudoomiyaha gobolka Banaadir oo dhahayo intuu dad badan dhiman lahaayeen maxay ahaato hala baahdo halla macnaha halla cariiri ha lagu jiro. bal eragaas ka waran. macnaha wuxuu yiri intay dad badan dhiman lahaayeen xogaa hal cabursanaado oo hal dulqaato leeyahay, dhibaatada loo dulqaato maasha Allah. maadaama qaraxii naga yaraaday waxyaabo badan naga yaraaday ayuu leeyahay. warkaasi war macquul ilaaha aniga marka fikradiisa aan ka hadlo, waayo intee hal mar ay 100 qof naga dhiman lahayd wadooyinka in iska dhibtoodo yani la iska safro inta xaalka iska bedelayo ina macaliyo xaalka iyadana war macquul ah, war xun ma ahan. gudoomiyaha warkiisa waa war macquul ah maasha Allah. marka ka war xagga cudurka coronavirus markaan usoo laabano. wallaahi cudurka aafadan wadanka ka jirta horta waxaa waaye musiibo rabbaani waaye. ilaahay subxaanahu watacaala ummadda muslimiinta ka dulqaado. say u timidna wallaahi isbedel badan ah wadankii iyo adduunkii ka dhacay xagga dhaqaale haddii la dhaho, xagga socodka dad adduunkii oo isku furnaa oo kala xirmay, dhinac walbo saameyn dhaqaale iyo mid amni mid walbo wuu yeeshay. marka qof kastana meeshiisu ka dareemay, macnaha qof kasto ama ha ahaado taajir ama faqiir ha ahaado ama ha ahaado nin siyaasi oo ama nin caan ha ahaado ama nin oo miskiin ha ahaado, intaba meeshiisa ay ku saameysay. gaar ahaan annaga haddaan nahay gaadiidleyda ka shaqeysa magaalada Muqdisho aad iyo aad u noo saameeyey, waayo diyaaradihii imaan jiray magaalada Muqdisho iyo dadkii aan geyn jirnay elboorada xidhan waa istaageen oo wax socdo ma lahan. dadkii oo shaqaalihii oo magaalada ka shaqeynaya ayaga xitaa guryaha iska joogaan wax shaqeeya ma lahan. jaamacadihii iskuulaadkii kulli macallimiintii waxoo dhan waa xiran yihiin. marka wallaahi aad iyo aad u noo saameeyey kullu waxa waaye waxaan wada qabno waaye Soomaaliya kuma soo dhigno caalamka oo dhan, caalamka oo hadda. laakiin Cabdixakiin ma ku darsanaya haddii oo loo eego dhanka kale oo macnaha dhinaca cibaadada, alxamdulillah rabbil caalamiin. annaga masaajidina waa noo furan yihiin, taraawiixdana waa tukanaa, waa macnaha alxamdulillah si fiican oo maasha Allah. halka adduunkana oo masaajidaha laga xiray oo cibaadada laga xiray oo shaqooyinka laga xiray oo wax walba laga xiray. dadaan hadda garoow kala hadlayo waxay igu dhaheen maba tukanaba taraawiix.
idinka ma tukataan waa tukana kismaayana waa maqlaysay wuxuu ahaa madaxweyne axmed madoobe habeen horey ku dhawaaqay waa fantay magaalada muqdisho laakiinse waa laga tukadaa badanaa waa laga dhutaa boqolkiiba 90 waa xiran qaar oo adiga boqolkiiba 90 waa laga tukadaa magaalada muqdisho alxamdulillaah bariyada ilaahay laguma qadayo nimca ilaahay waa taas xitaa oo ilaahay uu noo nimceeyey wadaan taraawiixdeena iyo jamaceena iyo jamacaadkeena iyo jimcooyinkan aan tukanayno ilaahay lagu mahadiyo ummadda kale oo masaajidda ka xiran tahay waxaan leenahay ilaahay subxaana watacaala idinka dulqaado oo masaajidiina cibaadadiina ilaahay idin furo waayo waxaa uu leeyahay masaajidka xaramka xiran oo weliba hadda waa la furay laakiin dad yaro kooban oo 300 oo qof ay ku tukataa oo weliba ay kala istaagaan space u dhexeeya marka alxamdulillaah rabbil caalamiin dhankaas horta waa maasha allah ka nahay laakiin dhinaca dhaqaalahana kulli waa adduunku waa isfuraya cudurkan waxaa maqlaayay meelaha ka maqlaayay in cudurkan uu sabixi doono cudur oo caadi noqon doono sida AIDS oo kale oo marka mid lala qabsan doono caadi inuu noqon doono insha Allah ilaahay baa ka warqabtaas ilaahay xaqiisa wili ma oran insha Allah haye maxamed waxaan ku leeyahay thank you